marka waxa waaye meeshan 10 maalmood ayay socotay waxbarashadu waxa lagu barahayay qaabka amniga madaxda ama VIP ayaa lagu baranayay daruusta markii ay qaadanayeen aad iyo aad bay u wacneed macallimiintuna aad bay u dadaalayeen in ay si fiican wax u baraan ardadana u heelanayeen oo han weynayeen askartu in ay si fiican wax u bartaan badan aan ka fahamay sida dhibaato looga hortago ama dambi soo hortago sida hadii Ilaahay ku ran yahay loo badbaadiyo nafsad qof bini'aadana sida VIP protection waxa la yiraahdo oo ciidamada security-ga ama ilaalada madaxda ay ku shaqeeyaan waxyaabo badan oo aanu soo bandhigi doono nalkana fahmi doono markaan shaqada iyo xafiisyada dib ugu noqon This course is very unique in two major ways. One, this is the first time we are bringing Somali police, Somali correction, and then the judicial system in Somali together in a course such as this. On the preparation front with our brothers in Amisom, we created a course that satisfied all the conditions that are needed to protect judges, and it includes motorcades, close personal protection, site security, wands, bomb detection, and a few other things, and that's what took place over the last 2 weeks.